sheekh waxaan ku weydiinayaa qofka asagoo yar oo 16 jir ama 17 jir ah hadduu soon ka tago markuu weynaado sideebuu u qallaynayaa soonka tirada soonka laga rabana ma uu garanayo hadduusan qaangaadh ahayn oo yar yahay oo uusan weli qaangaadhin ayaa lagu qaangaadhanayda waa taqaanaan inuu biyo keeno inay gabadhii caadadii ku dhacdo inuu intaaba ay kadib dhacaan oo 15 sano gaadho inay timaha hoose ka soo baxaan hadduu qaangaadho calaamadii qaangaadhka la helo markaana uu soonka ka tago waa inuu soo qalleeyo maalmihii ka tagay ilaahayna u toobad keeno laana waa mukallaf ruux mas'uuliyadi saaran tahay oo waajibkii dayacay waay marka dambina waa ka dhalanaya qallana waa lagu leeyahay waa inuu soo qalleeyo maalmihii ka tagay inbuuna soo qallaynaya haddii waqti dheer ka soo wareegay oo ramadaanno kale soo mareen raashiin ma ku daraya waa madhabka xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay leeyahay raashiin ha ku daro laakiin nascad ma laha raashiin ha ku daro waa ijtihaad fiqi ah laakiin daliil cad iyo nas marfuuca ma laha sidaas daraaddeed intuu ka tegay ha qalleeyo ilaahayna ha u toobad keeno hadduusan qaangaadh ahayn oo isagoo ka yar oo ilmo oon qaangaadhin soonkii ka tegayna waxba laguma laha laana rufica alqalamu can 3 nabiga yidhi sal alla alay wasalam 3 ruux qalinka waa laga kor qaaday waxaa ka mid ah can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarkaa ilaa uu ka qaangaadho marka hadduusan qaangaadhayn waxba laguma laha hadduuse qaangaadhay xukunkiisu waa kaan soo sheegnay wallahu aclam